waxaan joognaa xarunta golaha shacabka oo maantay sida aad wada arkaydeen xalay la soo diray fariin lagu sheegayo inuu furan yahay fadhigii golaha shacabka lagana doodayo arrin ku saabsan COVID-19 runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado oo nasiib darro weyn ah in maantay iyadoo la og yahay duruufta dalka uu ku jiro iyo marxaladda uu taagan yahay baarlamaankii uu noqday أداة أما آلة مدحوينها مدحليتكي صدماضي مركي أو ربع البابكي سأوير هذا هلا حرو مركي أو ربنا أوير هذا هلا يفرو سيدا عبد السعودين أرنت كوفيد-19 وأدبات جرتا ذلك جرتا لكن ما أهن شقاء قولها شعب أوطال وأرن أي لا ذا حكومته مسؤولية ذا أي تهي سيدو كلنا وحاجر جدي أسجل روحيسا loo xil saaray arrintan oo ad hoog aha oo baarlamaanku uu yiri xukuumadda ku daba gasho guddigaas ruuxiisa markaan wareysano gudoomiyihiisa wuxuu noo sheegay inaysan jirin cid la soo xiriirtay iyo warbixin ku saabsan COVID-19 oo maanta baarlamaanku uu balansan yahay laakiin sida ajandaha xildhibaanada kale ay u arkeen ayaguna inay u arkeen runtii waa nasiib darro aad iyo aad u weyn aad iyo aad aan uga xunnahay madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday gudoonkii baarlamaanka inuu jeebka inta ku rito mar allaale iyo markii uu u baahan yahay inuu isticmaalo baarlamaankii inta fariin u soo diro uu leeyahay la ii furo ama la ii xiro waxa kale oo nasiib darro xarunta baarlamaanka sida aad aragteen banaankeeda iyo korkeedaba in maleeshiyad hubaysan oo bastoolada ku hubaysan oo dharcad la soo dhoobay oo la doonayo in lagu qalqal galiyo xildhibaanada lana doonayo in lagu fuliyo ajanda guracan oo dastuurka dalka iyo shuruucda dalka u taala runtii baalmarsan aad iyo aadan arrintaas u cambaaraynayna ogana xunnahay wax la aqbali karana ma ahan cod dheer ayaan ku sheegaynaa annagoo xildhibaanada golaha shacabka in dalka aan loo afduubi karin mudane farmaajo muddaxileedkiisii waa dhammaaday madaxdii dowlad goboleedyadu waa joogaan mujtamacii dawliga ahay oo dhan waa joogaan hadduu doorasho u baahan yahay odaga waxaan leenahay inta u tago dowlad goboleedyada xalana jooga oo shirarkooda habeen horena oo dhaca maantana mid kale ay u ballansan yihiin ha ka shaqeysay dalku doorasho u aadi lahaa laakiin xoog iyo qori caaradiis iyo maleeshiyaad la soo abaabulay dalkan kuma haysan karo annagana yeeli mayno mana aqbalayno gudoonkana waxaan leenahay filin dhammaaday ayaa tigid u goosateene caqligiina soo laabto dib u soo laabta dalkan ha loo turo fidno iyo qalalaasa iyo burbur hollana dalka yaa la gelin aad iyo aad u mahadsantihin sideedaba golaha shacabka procedure ayuu ku shaqeeyaa xoreysaad uu leeyahay xeroosaad ajanda marka la keenayo guddiga joogtada inuu fariisto waaye guddiga joogtada inay soo gudbiyaan weeye kadibna loo soo gudbiyo 24 saacadood ka hor xubnaha golaha shacabka sidaasna ajandaha lagu soo daro loo keeno sooma marin procedurekaas guddoonka waa ka qariban tahay waa ka hadlaysan tahay waxaan u sheegaynaa xeroosaadka golaha shacabka inay ku soo laabtaan gacan maroojinta ay wadaan iyo fikradaha qaldana meelaha kale inta ka soo minguriyaan ay ku shaqaynayaan inay ka leexdaan way annagu waxaan doonayno haddii laga doodayo ajanda la keenayo golaha shacabka nidaamkaas ayuu leeyahay gudoomiyaasha guddiyada la wareystaa kulan golaha guddiga joogtada ayaa la qabtaa sidaas ayaa ajandaha lagu soo daraa golaha shacabkana loo horkeenaa dooduna saasay ku bilaabataa annagu marka waxaan doonaynaa hadday ajanda qabaan ha horgeeyeen guddiga joogtada ee golaha shacabka soo ansixiyo ha loo keena xildhibaanada doodeedana waa ogolnaa markaas ra'yiga aan ka qabnay inaan dhibin madaxa sheegtay oo aad leedahay macnaha way joogaan ma aanan arkin xaggee ku aragteen adinka xasanoo hadda u baahanta anaa ku wadaya bannaankay joogaan fadhiyaan ayagoo boqolaala koray saaran yihiin saraakiishii amniga ee baarlamaanka amnigiisa xil saarneeda booliska ahayd ayaa lagu wargeliyo la yidhi amniga ayagaa mas-uul ka noqonaya haynaya qof kasta oo ama xildhibaana ama shaqaalaha baarlamaanka ama warbaahinta oo soo maray iridda baarlamaankana waa arkaan albaabkay fadhiyaan koray saaran yihiin wax qarsoon ma ahan waxaan ku been abuuranaynana ma ahan marka cid walibana waa weydii kartaa haddaa hadda u baahan tahana inta ku raacaan iridda kula taga anaa ku tusaa maxay qaban karaan oo xildhibaanaad tihiin xasaanada leedihiin maxay soo kordhinayaan maxay samayn karaan waxay qaban karaan waxay soo kordhinayaan ciddii horta keentaa la weydiinaya laakiin nidaamka iyo xeroosaadka golaha shacabka u degan ma ogola ciidamo aan ahayn kuwa booliska ah ilaaliya amniga golaha shacabka inay soo galaan xarunta baarlamaanka mamnuuc ayay ka tahay sharciga ayaana ka xaribay waana midda aan leenahay laga bixiyo hadda ka hor sidaas oo kala dhacday
markii farmaajo imaanayay markii ra'iisul wasaaruhu imaanayay sidaasoo kale maleeshiyaadkan u keeneen waan kala hadalna guddoonka maantana sidoo kale loo soo dhawo ma yeelayno waxaan aqbalayna ma ahan waa wareysano waxaan riyaa keenay saraakiisha amniga xil saaran waxay noo sheegeen amarka guddoomiyaha inay ku yimaadeen asagoo u codsan yeeli mayno marka maleeshiyaad in inta golihii shacabka xaruntiisii la soo dhoobo xildhibaanada lagu handado dadka lagu handado ma aqbalayno dalkaanuna dal dimuqraadiyad iyo dastuur iyo sharciyad uu ka shaqeeyo inuu noqdaan rabnaa dooni mayna dal nidaam booliisi oo ka shaqeeyay inuu yahay diktatoriyada dib loogu celiyo soo bandhigay oo qoraal noocaas la idin keenay maxay tahay shakiga aad qabtaan qoraal baa la idin soo diray ma in la isbedelo inuu qoraalku isbedelo oo waxa aad ka baqaysaan mutakorrisi miyaa imaan kara mar haddii qoraalka aan aragnay oo ay ku qoran tahay waxaa laga doodayaa dhibaatada koofidka ama cudurka caabuqa oo ku hayo ummadda laga doodaya haddii la yidhi waa maxay shakiga aad qabtaan shakiga meesha jira kuwii shala hadlayana waad maqlayseen kuwa hadda maanta baarlamaanka ka dhex hadlayana waad maqlayseen waxay u socdaan inay muddo kordhin yihiin tan kaloo meesha taalana waxay tahay waxaan rabnaa procedureka in la waafajiyo covid-19 xukuumadda ka mas-uula annagu umaana wac guddigaa loo xil saaray ayagii warbixinaan baarlamaanka u wadnaa maysa dhihin ajendana sidiisa wuxuu soo maraa guddiga joogtada saddexdoodii midna ma hayno maxaan marka aan ku aqbalnaa inaan meeshaan inta iska fafadhin ilaa xildhibaanaan waxaan ku nahay shuruucda dalka uu leeyahay dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka waxaan difaacayna marka waa shuruucdii dalka u taal waraa la soo marsiiyo procedureka haddaad ajenda qabtiin ha idiin soo dhiibta farmaajo hadduu rabo geeyo guddiga joogtada ha ka shiro go'aan ha ka soo qaato baarlamaanka u soo gudbiyo ha ka doodeen golaha shacabka ha la keeno laakiin ajenda nin jeebkiis ku jiro markuu rabo uu soo dirayo oo leeyahay baarlamaanka waa furan yahay markuu rabana uu xirayo wax la aqbali kara maahan mana yeelayno insha allah waa mahadsantiin